Soomaali waan salaamaya meel kasta oo dunida joogtaanba maanta waxaan ku faraxsanahay inay qaatuman soo buuxisay wax kasta oo sharci ah oo looga baahnaa inay ka mid noqoto dowladda Soomaaliya loona aqoonsaday baarlamaankuna ansixiyay prime ministerkii Soomaaliyana oo imanay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qaatumo way soo dadaaleen dhalinyaradoodii dhiig bay ku bixiyeen in qaatumo la joojiyo oo dawlad noqoto oo maamul noqoto oo meel istaagto oo ka go'do gooni u goosatadii oo xoog dhulkeeda uga saarto oo ka faramuroojiso wixii halka dul yimiday ee Muuse Qamuunyo watay duhur cad ka saartay 34 sanado intay soo socdeen 2 saacadood kaga saartay oo hub iyo ciidan iyo wixii saanad ay haystaan logistic ay kala hadheen waxay ku bixiyeen dhiig iyo dhalinyaradooda Muuse Qamuunyana maanta wuxuu egyahay riixan dhale baan arkay isagoo oo dambigii uu ka galay ummadaas xasuuqii uu geystay ilaahay cuqubadii ka soo saaray oo greedy isagoo wax kale oo eroded isaga oo lismay oo baaba'ay baan arkay waayo dambigii uu ka galay ummadda hooyadii 7 ciyaal lahayd kaadiya abwaan kaadiyo kumaankum oo qof halka uu ku dilay ilaahay baa dabada uga soo saaray cuqubadii baa ku dhacday oo rifmay oo lismay waxaad arkaysaa inay cuquba ku dhacday markaad aragto wajigiisa cuqubadii inay ku dhacday ayaad arkaysaa in nolosha lagu cadaabay baad arkaysaa oo cadaab ku jiro ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu uga aargooyo wixii dad u dhibaato u geystay oo xasuuqay wixii xumaan iyo wixii calooshiisa ku jiray xumaan u qabayna isaga ayay ku qarxeen waxa kale oo dawladda Soomaaliya iyo qaatumo ka codsanayna in Erigaabo ay noqoto magaalo Soomaaliyeed oo calanka Soomaaliyeed laga dul taago xoog looga taago sidii looga saaray laascaanood halkaana xoog looga saaro calanka Soomaaliyeedna laga taago dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in qaatumo la taageero ciidanna lagu taageero dhaqaalana lagu taageero siyaasadna lagu taageero intaas ay qaatumo u baahantay waayo waxay u tahay wanaag dawladda Soomaaliya iyo midnimadeena iyo qarannimadeena iyo jiritaankeenna ayay muhiim u tahay in qaatumo dawlad xoog leh laga sameeyo waayo Soomaali diidkii baa halkan albaabka u taagan marka Soomaali diidkaas si aanu jaanis u helin waa in dawladda Soomaaliya awood gelisaa xire military laga sameeyaa amba iyaga militarygooda la taageeraa oo dhaqaale iyo hub lagu taageeraa iyo siyaasadba lagu taageeraa taasan dawladda Soomaaliyeedna ka codsanayna waayo qaatumo waa wadnihii ummadda Soomaaliyeed waa halbowlihii ummadda Soomaaliyeed waa jiritaankii ummadda Soomaaliyeed waa midnimadii ummadda Soomaaliyeed isku xidhaysay ee argagixisada albaabada u soo xidhaysay way qaatumo marka in la taageero weeyaan iyo waajib tahay madaxweyne waxaan u jeedaa prime minister aad iyo aadna kugu soo dhaweynaynaa in qaatumo la garab galana Soomaali jiritaankeeda ayay muhiim tahay waxa kaloo rag baa ila soo hadlo waxay leeyihiin inagu ciise wuxuu ka mid yahay bay leeyihiin waxaad ka mid tihiin maamul beeleedka Hargeysa ayaad ka mid tihiin oo waxaan samaynaynaa urur la wada leeyahay maxay kale waxbay akhriyayaan waxa aan la yaabay raggaasi caydu aabbaha wasmaha hooyada wasmaha caydu tana ka daran anigoo nin ciisa oo dawladda oo xeerkayga la aqoonsan yahay oo ugaaskayga la aqoonsan yahay oo sharcigayga la aqoonsan yahay oo dhaqankayga la aqoonsan yahay oo magaalooyinkayga la aqoonsan yahay miyaan jabhad argagixisaa ku biira oo qayb ka noqda miyaan cayahayn qola argagixisaa oo Soomaali diida miyaan ku biira anigu oo qayb ka noqda war waxaas waa ceeb weeye waa devaluation waa meel ka dhac kama mid noqon karo argagixiso Soomaali diida oo dhibaatada Soomaaliyeed ka shaqeysa waxba lama qaybsan karo eesanaanu qaybna kama noqon karo walaa dibadda sheegaysaan walaa gudaha midna qayb kama noqon karno waxaanu aragnaa maamul Soomaali diida maamul qabali aanu aragnaa maamul sadbursi iyo ihaanad iyo qabyaalad iyo cadaadis iyo afxumo iyo cay ka dhisan baanu aragnaa anagu
maamulka hargeysa SNM saas bay waan ognahay anagu wax beena kama sheegayno waxa tirada carabtu yani wixii waxa tirada carabtu la tasal dabib asal mugarrab anagu waan garanayna lanaguma qaldi karo maamulka inaan qayb ka noqono lagumana sheegi karayo qofkiina qayb baad ka tihiin amba waa ceeb waa dhacayde waa meel ka dhac dad aqoonsi raadinayo oo waxba haysan oona dawlad ahayn oo been ku nool 4 iyo 3 sanadood qayb kama noqon karayna anagu kumana biiri karno waxna lama qaybsan karno waxaan arkaa baryahani qolooyinkii abtiyaasha ee Samaro oo iyagu baryahani jacayl SNM galay oo darkayso iyagoo wanaag yani si u amaanayaan adka yaabayso mid arrimaha dibadda loo magacaaban arkayo aqoonsi baan doonayna dadku waa inaan aqoonsi wada helnaa waa inaan wada gebigeen u halganaa sana aqoonsi helnaa aqoonsiga ay doonayaan waa in adiga ku duleystaan hadday dhowr kun oo qof kaa dileen markay meesha qabsanayeen imika 10 kun bay kaa dilayaan oo ku adoonsanayaan waa in you have to know that jacayl baa idin galay fara badan imika SNM oo mid kastoo sawirar wax arkaysa isagoo amaanaya SNM buu amaanaya kalgacal waxaan anaga idinka horeynay dariiqana socotaana waa dariiq anagu aan soo marnay sooto iskaala nafsu dariiq baad socotaan abaal male heshiis male argagixiso weeyaan iska jira annagaa garanayna waanu idinka digaynaa waayo annagaa naga tusaale qaata dad aan abaal lahayn waxba abaal ka sugina wax abaal haba yaraatay waxa kale oo rabay gabadh baa jirta fanaanada gabadha aad bay cod fiican tahay Soomaaliya Muqdisho looga yeeray orchestra 40 qof baa u tumaysa oo ay heesaysay oo ay cod macaan tahay waxa ma laha gabadhan Soomaaliyeed ka matali doonta adduunyada ay idin matali doonta kullu shay yarjuu al-asl show qabiiliyad baa dadka halka orchestra u tumayo qof qolodeedii kuma jiraan xamarna qof fanaan oo orchestra loo tumo lama waay يعني فنان هام بالله يرد ويالك هو هيسيس وهيسيجا أي سومالو دنو دقيستا لكن ما أنت علن كي أرجع حسدا علن كي سومالي ديت كي صحرت وحي موجصي إن السومالي ديت تاي ومن لماذا الصوماليات وقولين وقرن لماذا الصوماليات كصور جوت وعلن كلا يدوس دت علن كقف ستاي والصومالي ديت صومالين هم هيسيس فناننا وهان ميسد هرجيسون بعض هيس gabadhii Samaro magaceed maxay ahayd mahabboon bay ahayd codka macaaneed caalanka dul dhigeen uu dhintay fankeedii uu dhintay adigana maanta fankaaga dhintay haddaad fanaanad tahay Hargeysoon baad ka haanaysaa jigjigana kama heesaysid waanaga gaarsiinayna Jabuutina ka heesamaysid Kenyana ka heesamaysid Muqdishona tagi maysid garawana lagama ogola halka Hargeysaad ka heesaysaa fankaagu Hargeysu joogaya sida ninkii la oran jiray biika nacad macaanaha وقبيلة وقلة وحكود دمبيي مركي عد كحيرة تواي عذر يوحي يبيا تصبحيه أدنى عذر يو تصبحيه دي من سوينا دوقاتها أديك آسي فنكاجي فنان كو قبيل ماله قرام ماله لقد وكفنان كوي هاي بودات كودم وكان حيا لكن تي واد جنود قبيلة باكو قادة وحكلو جركو يرو كلو جبوتان كيس يايري مالها وريوني ودadkii Soomaaliya caayib ka mid ah dadkii Soomaaliya aflagaaday ka mid ah isagoo Soomaaliya aflagaaday de Djibouti inuu yimaado wada dambi iyay tahay waxa ka sii daran tii Djibouti ayaa Soomaaliya caayib ciyaar bay halkan intuu soo fariisto caayaya Djibouti oo dumarkooda iyo hablahooda ayuu caayaya caarkiyagu wax ka sheegaya dadkaygu wax ka sheegaya anaga ehelkayaga iyo qaraabadayada Djibouti ayuu aflagaadeynaya Djibouti inuu tago doonaya oo dhaawaneysaya ma ku badbaadaysa Djibouti hadda tagto dhalinyarada jirta Djibouti joogta ma aha dawlad dhalinyarada joogta dad baa dalkan iska leh dhalinyaro way ku sugayaan ma iman kartid mid la yiraahdo Djibouti jib life la yiraahdo oo waa baahiba u geynaysa la yiraahdo kaasa wada waa gaajo waxa u geynaysa la yiraahdo anaga lacag ku siinayna ku oranayna gaajo ku geynaysa la yiraahdo baahi قف باهنين وجن ويا قف كادو باهية جن قف باهني جن ويا قبل ما كدير قف كدت كاجي عاية قبلها كاجي عاية الدمر كاجي عاية ميل بقاوني عندها قاوني ومحبها قاون لي ما تكسر دوين كرتا جبوتي
مسكوا إلى أن كرتا يا سكاني كلا جبوتي ما إسلامت اللي شيء صفيات شيء سنة يا كنس يا مصطفى فيسبوك يا علي بورديل يا إنا ماول كل واحد أصلا كنس دي هرجيسها وطجان هرجيسها وطجان هو هس جبوتي ما هدول كودي ما قالت بعد كل جوكتان إذا بدرت كل جوكتان مرتباتين مرتنواتي أدبية تويا وحال ربطان كمسك من كرتان جبوتي ضد باله إنسان وحنا له ورقبيالات دبرتا شرفتي إنها كجرتو كرامتي إنها كجرتو هرومركي إنها كجرو قروحدي إنها كجرتا إذن كدحدي إنها ما قبيالات دن غير كنشاركا برتا كايدن عايا لا يدوكو كان يا هرقيسة إن لا يدوكو كان يا جبوتي وارد قبيالات برتان عيسو إذن كتدحدي إنها ما وعيسو ووضع عيسو ووضع عيسو إنك كلا عارم ديرا هلكا هوسا وقدا دعينا لكن هيراها كلا يدي قبيالتين قبيالات دو دبرتا dadkan qabyaalada idin kula nool ee wadanka idin kula nool ee haddana gabiile iyo hargeysa u sacabtuma iyo ogaada oo inaad dareemaysaan tusa oo inaad fahmaysaan tusa oo inaad ogtihiin tusa oo ficil baa laydinka rabaa tusitaanka kadibna ficil sameeya oo qofkii qabyaalada ku aragta adiguna qabyaaladee dhulkaagii buu joogaa degaan kuma leh magaalo quray ka degan yihiin ma jirto inay ku qabyaaladeen maaha oo islaanta eblaayo iyo almis iyo islaamo iyo qolooyin inay keenaan oo yidhaahdaan hees hadhowna caay kuwayna caay waxay nagu caayayaan iminka kuwan ciise caayaya madaxweynaha caay maxay nagu caayayaan way naga xun yihiin qarannimadeenna ka xun yihiin aqoonsigeenna ka xun yihiin ogaaskeenna united nationku aqoonsatay ka xun yihiin sharcigeenna la aqoonsaday ka xun yihiin xeerkiina la aqoonsaday ka xun yihiin magaalooyinkii innaga aan leenahay oo la aqoonsaday oo UNESCO yaallay ka xun yihiin wax kalena waa haystaan ma jirto nolosheennay ka xun yihiin iyo jiritaankeenna iyay ka xun yihiin waxaasoo dhan bay ka xun yihiin wax kalena waa haystaan ma jiro wax kale annaga yara aqoladan abaar wal naga dhexeeya waxay ka xun yihiin jiritaankeenna waa qabyaalad waydi qabyaaladaynayaan ha soo dhawaysan adigu ninku qabyaaladaynayo oo noloshaada iyo jiritaanka iyo dowladnimadaada ka xuna soo dhawaysan war ciisow qabyaalada barta danba idin tahay inaad qabyaalada barataan danba idin tahay inaad cadowgiina iska elisaan danba idin tahay ku idin caayi hablihiin iyo dumarkiina caayi inaad jabuuti keeni danba idin tahay inaad ka iyaga u shaqaynaya ee dayuuska ah ee wadwada ee horkacaya inaad qabataan ood gacan ku qabataan dantiinay ku jirtaan واي وديوس نكذب قبلهن هي دمر كي نعاية كورس علي وديوس قفك هدوك جاجونا هيلب حلال هيلب كيس حلال وقفك هدوك جاجونا وضد باهم بالروك جاجونا وحسية وعنتصية والعقو ورية لكم وهذا السلام يا صومالي ميلكستا او دوني دا جوكتان عيسو فريد دو حوين القبيلة برتان ودقاتان قبيلة دو حيتا هرومرك هالكاسو دي يالا jiritaankiina dadnimadiina sharaftiina iyo karaamadiina waxay ku jirtaa inaad qabyaalada barataan